daawadayaal ku soo dhawaada EBC Channel waa labaad kala socotaan wararka caalamka, warka degdega ah, falaqaynta wararka iyo warka Soomaaliga. Daawasho wanaagsan ha magaanina. Waa tahay daawadayaal, warka caawa waxa uu ku saabsan yahay dagaalka ka dhex qarxay madaxweyne Trump iyo gudoomiyihiisa bangiga dhexe Jerome Powell. madaxweynaha dalka Mareykanka mudane Trump ayaa isku furay moojado aanu ka dhammaan karin kadib markii uu maalmihii la soo dhaafay uu canshuur dheeraada dul saaray wadamada adduunka uu ka dhaxeeyo ganacsiga dalka Mareykanka. wadamadaasi wadanka ugu tunka weyn waa dalka Shiinaha, isla markaana ay xidhiidh ganacsi oo fog ay wada leeyihiin dalka Mareykanka muddo dheer. haddaba su'aasha meesha taala ayaa ah, maxaa iska hor keenay madaxweyne Trump iyo gudoomiyihiisa bangiga dhexe Powell? waxaa iska hor keenay dalka Shiinaha kadib markii madaxweyne Trump uu la beegsaday Shiinaha canshuur gaaraysa ilaa 45%. kadibna dalka Shiinuhu waxa uu ugu jawaabay Trump inay iyaguna 20% gaarsiin doonaan canshuurta Mareykanka. arrintan mindi ku taag ayaa waxay keentay in ay hoos u dhacaan suuqyada waaweyn ee lagu kala iibsado ashcaarta. khasaarahan oo lagu qiyaasay mid gaaraya trillions. lacagta dollarka oo ah World Reserve Currency, lacagta kaydka adduunka ayaa idina hoos u dhacday. marka lacagtaasi hoos u dhacdo waxaa imanaya inflation, sicir barar. si looga hortago sicir bararkaas waa in dawladdu ay daabacdaa lacag fara badan oo lagaga hortegayo si uu sicir bararku hoos ugu dego. lacagta bangiga dhexe uu daabacayo ma aha lacag kaasha ee waa lacagta loo yaqaano booniska. boonisku waa waraaqo, isla markaana waraaqahaasi bangiga dhexe waa uu iibiyaa. cid kasta ayaa iibsan karta. marka dadka iibsada booniskaas waxaa loo saaraa interest, lacag dulsaar ah. haddaba madaxweyne Trump ayaa ku amray gudoomiyaha bangiga dhexe Mr. Powell in uu hoos u dhigo lacagta interest rate-ka. gudoomiyaha bangiga dhexe Mr. Powell waa uu ka aqbalay madaxweyne Trump arrintaas, kadibna interest rate-ka hoos ayuu u dhigay maalmo dhexdaasa. arrintu waa ay ka sii dirtay, suuqii ayaa sii xumaaday, sicir bararka ayaa sii batay. kadibna madaxweyne Trump waxa uu ku celiyey mar kale maalin dhoweyd in uu yidhaaho interest rate-ka hoos u dhig haddana. Mr. Powell waa uu ka diiday arrintaas codsigaa labaad, waayo waa nin aqoon-yahan ku xeel dheer xagga dhaqaalaha, isla markaana og saameynta ay ku yeelanayso haddii saa la sameeyo. waanu u sharaxay madaxweynaha. kadib madaxweyne Trump waa uu maqli waayey, waayo waxaa isaga kaga daran jabka iyo khasaaraha ka soo gaadhay canshuurtii uu soo saaray ee uu saaray wadamada adduunka, taasoo isagu ceeb ku ah haddii uu dib uga noqdo. kadib waxaa dhacday in madaxweyne Trump uu ka aflagaadeeyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee isagu doortay miidiyaha. waxa uu ugu yeedhay mid khasaaray. Trump waxa kaloo uu sheegay in aanu ku faraxsanayn in ay sii wada shaqeeyaan gudoomiyaha bangiga dhexe Mr. Jerome Powell. waxaana damciisa ku jira Trump inuu xilka ka qaado. hadalhayntaas ayaa miidiyaha dhex taalay maalmahan oo dhan. nasiib darro, madaxweyne Trump hadda xilka kama qaadi karo gudoomiyahan, waayo waxa uu leeyahay muddaxileed 4 sano ah, waxaana hore u magacaabay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka mudane Biden. sidaa daraaddeed waxa u harsan 1 sano, wuxuuna ku noqday caqabad madaxweyne Trump. dhinaca kale, waddanka China waa waddanka ugu badan lacagta maalgelinta ee iibsada lacagta loo yaqaano booniska. waxa uu dalka Mareykanka uu ku leeyahay lacag dhan 760.8 bilyan. Chinesku waxa uu sameeyaa marmar in uu iibiyo lacagta booniska loo yaqaano. maalmo dhoweed waxa uu iibiyey lacago fara badan oo booniska ah. taas ayaa saameyn ku yeelatay lacagtii dollarka oo hoos u dhacay. Chinesku waxa uu ku jiraa dulqaad aad u weyn, dhinacna waxa uu ku jiraa taxadir aad u weyn.
marka la eego habdhaqameedka madaxweyne Trump. Arrintan booniska loo yaqaano waxa ay ku tahay arrin dab ah madaxweyne Trump, waayo Chinesku haddii uu doono waa uu fasaxi karaa lacagta xaddiga la eg. haddii uu fasaxana lacagta dollarku waa uu dhammaatay, dib dambana loo arki maayo.